بسم الله الرحمن الرحيم halkaad naga daawanaysaan waa Indo TV iyo magaalada Cape Town waxaan ahay wariye Cabsaaq Najcal in mudaaba wadanka Koonfur Afrika oo ku noolnahay waxaad ka maqashaan dhacdooyin kala duwan oo sanad waliba laga diiwaan geliyo haba ugu darnaatay dhacdooyinka ama dhibaatooyinka ay la kulmaan ajaanibta ku nool wadankan iyo Soomaalida kamid tahay hadaba si aynu wax badan uga ogaano xaaladihii ugu dambeeyay iyo dhacdooyinkii la diiwaan geliyay sanadkii tagay 2022 waxaanu wax ka weydiinay isla markaana garabkayga bidix iminka fadhiya nabadoon Maxamed Cabdi Maalin Sanka oo kamid ah hogaamiyaasha jaaliyada ahna madaxa locationada Safe Somali Community in badanna u taagan u gargaarida walaalaha Soomaaliyeed ee gobolka Western Cape. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. maanta oo ay taariikhdu tahay 4 bisha Janaayo 2023 waxa ay suurta gashay in halka maartay aan ku wada kulano wariyaashii qaaska ahayo maartay South Africa oo inta badan arrimaha bulshada maartay u adeega oo meelaha wax ka dhacaan iyo meelaha maartay aaska iyo meelaha inta badan Allah naga hay masiibooyin ka dhacaan gurmadaan oo mar walba garabkeena taagan wariye Indo iyo maartay wariye Hawa Geele waxa leenahay horta baad Allah ka gaarto intaas ka bacdi waxa garabta kulankeena uu yahay maartay bal inaan maadaama ururka Safe Somali Community aan u qaabilsanahay madaxa locationada aan ahay dhacdooyin badan aan goobjoog u ahay in badan sanad walbana ay ku takhasustay in dhacdooyinka Cape Town ka dhaca ee sanad walba ay xirto marka insha Allah taala maanta waxaan taaganahay sanadkii 2022 maartay na soo dhaafay waxyaabihii maartay nagu daray ee dhacay ayaan wax rabnaa in la wadaagno bulshada Soomaaliyeed qaasatan dawladda Soomaaliya iyo maartay ummadda Soomaaliyeed kasta ay joogto marka ugu horeyso waxaan leenahay alxamdulillah sanadkii 2022 wax Soomaaliya oo la qafaalay oo hadda aniga soo gaartay amaan ogahay waanaan maartay goobjoog oo aan wahay ma jiro laakiin sanadkii 2021 iyo 20gii xaqiiqdii qafaalashadu aad iyo aad ayay noogu badneed oo maartay qofka inta la iska qafaasho bacyaal lagu gubo la cadaadiyo la yiraahdo la hadal dadkaaga hadba telefoon fraagi dadka laga soo hadlo isla markaana intaasoo boqol oo kun la sheegto alxamdulillah weli qofna kama dilino intaan ka badbaadsan karna waa ka badbaadsanay kul nashada eegatul moodna waa qof walba waxa waay ilaahay tabaaraka taala wuxuu maray waa iska qoran tahay sidaa darteed sanadkan 2022 gada u soo laabto oo qorsheenu yahay galabta inaan maartay ummadda aan la wadaagno especially ragga walaalaheena locationada oo khiyaartaana ay ogaadaan arabno waxa waaye dhimashada sanadkan naga dhimatay oo ama u dhimatay dad ilaahay oo kullu shay horta waxa way qof kasta waa dhimana laakiin dhimashadu waa kala xanuun badan tahay hadii la sugeeyo waxay noqonaysaa dhimasho tageysa waxa marka sanadkan halka ka arkaysaan naga dhintay 44 qof ayaa South Africa sanadkan qaasda magaalada Cape Town nooga baxday waxayna u kala jiraan sidatan adaan soo qaaday dhanka dilka sanadkan 22 qof ayaa ka dilay oo si bareer loo dilay oo waliba dadka qaarkood silac loo dilay hadaa fiirsanooyinkii hore waxaad moodaa inuu maartay xogaa hoos u dhac oo ka jira asaga naftigiisa waxaan ugu badnay laakiin dhimashada caadiga marka dhimashada caadiga naftigeeda waxay u kala baxdaa jiro iyo shil waxaa nooga dhintay 3 qof oo dhalinyaro ah ayaa shil nooga geeriyootay dhimashada jiradan waxa waaye 14 qofood waaye marka alxamdulillah tirada guud marka naga dhimatay sanadkan waa 44 qofood waaye oo 22 ay dil ay tahay inta kalena ay tahay awdeed dhanka dumarka hadaan fiirno ayagana waxa waaye waxa nooga dhintay halkan dumarka ayagana waxa nooga dhintay 6 qofood 6 hablood oo isku jira waayeel iyo gabdho yar oo dhalinyaro ah inta badan waxay u badan yihiin mootil faji u badan yihiin oo naftigooda dadaan jira lagu ogeyn oo maartay ayagoo jiifa qaar dhinteen qaar ayagoo maartay isbitaalka jiifay oo maartay in muddo xanuunsanay ay dhinteen hadda dhimashada waxaan ugu dambeeyay marka walaalkan Yuusuf Xasan Nuur oo ku magac dheeray magaciisa anaanistiisa waa dhintay Ufu qala ku sii Master Ufu ayaa ugu dambeeyay in muddo asna ku xanuunsan isbitaalka waxa leenahay horta dhammaan inta naga dhimatay waxa leenahay sabab naga wada siiyo Soomaaliya meel kasta ay joogto Allah ka wada samar siiyo eheldoodii iyo qoysaskooda waa la qaybsanayna tacsiida tiiraanyada anagu waxaan mar walba u taaganahay inaan mar walba aan la wadaagno dawladda Soomaaliya dhacdooyinka meeshan ka dhacayo laakiin nasiib darro especially meesha waxa jooga safaaradda Soomaaliya joogta safaaradda kulli waa naqaanaa dawladdu
waxay u xil saaran tahay waxa la yidhahdo waxaa waaye soomaalida dhibkeeda iyo calaaqaadka dalkan inay la wadaagto waxaa madaxdeeda laakiin insha allahu tacaala sanooyinka dambe waxaan rajahaynaa isbeddel inuu dhaco wax hadda xiriira ay nala sameeyaan oo maaratay arrinta nagala maaratay falanqeeyaan nama jiraan waxaan daraad arkayay facebooka Soomaali air team la maqan TV oo dhahayo rag ka hadlayo afartoo qof inta soo qaatay Kipton dhahayo cid iska xil qaamtay oo hawshan u saaran ma jirto waa la soo xil qaamay annaga u taagan annaga intaan noolnahay wariyaashkeena qaastan qadalaasi wari inda iyo maaratay wari waxa waaye ninkaleedo geele habeen maalinsan waxay ugu taagan bulshada in la socodsiiyaan waxyaabaha dhacay inta badanna maaratay aniga la shaqeeyaan maaratay wixii maaratay aan la kulmo wala wadaagaa ayagana idaacadda bulshada la wadaagaan marka sidaa darteed waxaan codsanaynaa safaaradda Soomaaliyeed waa la shaqaalatiin inaad ilaahay abuurta ka baqdaan annaga haddaan ururka Safe Somali Community ee magaalada Kipton ka jira albaabadina waa idin furan yihiin bulshada anaan u adeegnan diyaar u nahay idinka naftigiina inaad ka kaalmeen wixii maaratay macluumaad aragtiin ama wixii shaqaa albaabadina waa idin furan yihiin idinku iska xirina oo maaratay markaad timaadaan dalkan oo Kipton aad timaadiin iska daaya meelaha luqluqmarkaad inta gashaan oo dadan macnaha aan ahayl u ahayn amaan meel wax lagu dilay ama meel waxa lagu duuga aan ka warhayn aad meesha luqad ka wacanaysa intaas ka deedaan aniga aqoon buuxdan ii leedihiin haddana sibaad iiga leexataan waayo anigu maartay mar raba inaan maartay dadka qaarkood si ku dhaqmaan ku dhaqmo been in laga sheego macnaha mujtamacan halka ku dhiban anu diyaarumiyay waan arkayay waxay ugu dhibadneed oo macnaha waxay ugu dareedo maartay ayaan dhaxaas ayaan anoo maxkamad ka soo baxay oo niman walaalahay Soomaaliyeed tuuga dhaceysay maxkamaddii ayaan aniga shil gala marka waxaa la isu soo gaarsiiyay waxa way wixii jira ku sheegaan mugta waxa la yiri qaar badhaayeen dadka raba inay bulshada adeegaan ninkaas inkaarteena ku dhacday war aniga inkaar ugu dhicina wax qudrati ilaahay ugu dhacday aniga waana ka nool hadda alxamdulillah waxa saasa ma gaarin waa ka baashala laakiin dadka noocaas marka waxay rabaan dadkii bulshada adeegayeen indhaha hayna inay ka baxaan meesha kuwan bulshada adeegana ay u nacamlayaan aniga sidaba waxa la CBB oo ka soo horjeeda intaan magaalada Kipton joogana ma ka shaqeynayso haddaba ninkii raba inuu macnaha been iyo mal awaal inuu meesha ka sheego ama maarta u gudbiyo dawladda Soomaaliya inta aan noolahay ha isku dayid ama safiir ahaaw ama qusul ahaaw ama wakiil safarad ahaaw aday ku jirtaa aniga shaqaalaad ii taadi waa inaad ii shaqeysaa aan xaqan kula warkay aniga fiiri I'm not come from bush aniga din Soomaaliya dawladda si barka soo shaqeeyanahay nin xoogaalan ahay iska xuqubsan qana anaga tarabana soo mar jirnay howlaha iska xuqubsan qaba jirnay 8 saac baan soo kacsan jiray cidna wax numa sii jirin kacaan baa nala dhigay marka dadka noocaas dadku waxay dhigeen kacaan way war waxa kacaan isiiso ninka ummadda xu qabanay marka waxaan rabnaa in ummadda wax loo qabto teeda kale waxaan ka tacsiinayaa marka dhibaatooyinka maanta ka jira Sool iyo gobolada dhexe waxaan leenahay Ilaahay ha ka dulqaado laakiin waxaan uga digayaa madaxweynaheena madaxweyne Xasan Sheekh qeer Allah siiyo uu soo halgamay hawshan aqoon u leeyahay dawladnimada laakiin waxaad moodaa yara inuu gagaabsi ku jiro waxaan leeyahay shakhsiyaadka qaarkood madaxweyne kula shaqeeyayaan dagaal badan ku soo haye hawsh waa far culus tahay waa iga dhalin badan tahay dabcan ma is aadanahay xoogaal baa tahay bahasha meesha ay maartay ka soo rimaanayso bari kamal ay ka soo burqanayso madaxweyne iska daari especially meesha galmudug iyo meesha waxa wahay bay bakol adiga gacan ku meeysid haddaad ogtahay iyo haddii kaleba aynawna inaad ogtahay secondly waxaan rabaa inaan la hadlo ninka leeyahay waxa way gudoomiyaha baarlamaanka madoobe waxa aad dhoobaysa ma shaqeynayaan lafta galeen ma ka yeelay waxaas lafta galeen wuxuu diyaar u yahay in ama xoog meesha loo qaado ama si maartay sidii systemkii hadda lagu baxshay farmaajo inuu ku baxo diyaar u yahay waa si hayaal waa nimankaas marka insha Allah taala waxaan sanadkiisa kale ilaahay ugu baryaa ummadda Soomaaliyeed qaasatan Kipton in dhimashadu inta ka yaraato in maartay insha Allah taala dhaawacay dhibku inta ka yaraado hadan forget macnaha ma hadalku ma jireen dhaawacan wuxuu maraa 38 qof asagaas oo isugu jira marka dhaawac culus oo hadda qaarkood hoteelada ay yaaleen oo soo booqan karno oo 8 qof ah 30 waa dhaawac fudud oo ka kaceen alxamdulillah ilaahay tabaaraka taala ilaahay nooga dhigayana dhaawacaas iyo waxaba soo mareen ilaahay maanta qiyaamo mufaajiin iyo maartay qoylisita dibkaas u geysteen gacanka xaq daran waaye ilaahay maalinta qiyaamo waxaan leenahay dhiigooda hawsha fiican leenahay waxaan aad iyo aad marka u mahad celinaa aniga nimankan dhalinyarada maartay markasta isku hoola wallahi inaas wax tasiilaada ama wax maartay shilmada inay qaadan aysan jirin waxay diyaar u yihiin bulshadooda ay ka dhasheen ay Soomaalinimadooda maadaama ay dal shay aan joogno inay macluumaadka gudbi karaan u gudbiyaan ay dawladda la wadaagaan ay idaacadaha la wadaagaan waxaan rajaynaynaa marka in ummadda Soomaaliyeed markasta ay joogto ay noo soo duceyso Kipton ilaahay maartay culeyska ka qaado
raakibtoon maahan kaliya South Africa ilaa culayska Allah naga qaado maamul iyo nidaam dowladeedna Allah na soo gaarsiiyo ilaa xilliga shariifa aanu saa u qeynani mastasan kale dhahay waxaan kala rabaa marka inaan message yar oo mawduucan ku jira aan rabaa inaan ku darso laakiin anaga dan noo ah maalin walba iyo sanad walba iyo bil walba meeshan kibton qolooyin dibadda ka yimaadiin dhaqaalaha laga arushaa dhaqaalahaas laga arusha annaga ma naqaa meel ku baxaan 70 marra waa ka badan tahay inta aan aniga quburaha intaan tag aan ka hadlayo dhibaatada naga haysto quburaha aan ka hadlayo marba aan leeyahay war ma yahow qaabka wax loo aasuhayo ansax ma aha systemka waqtiga la aasayo waxa way xur uma nihin maalin walba familkii iyo maartay qoladii maartay miiska aasiisi dhaxdooda maalin walba aan ku dhintaa oo maartay qof kale imalay inaan aniga maartay u xarinayo waxaan ka leeyahay marka Soomaaliyay kama socona dalkan maadaama carruurna ku leenahay waxbarasho aan ku leenahay guryo aan gadgatooyno war aan samaysano ilaahayna ajir naga siiye dhul waqaf intaan gadanno aan waqafno Soomaalidana qaar waxay ku leeyihiin war casarkii ma ka dhigtay ka bacdi aask aan ka dhiga maxume ninkii saaka shaqada soo galay 4 galabna uu shaqada ka baxaa qaabkeen marka aniga uga dhigi karaa marka xawaaye after xawaaye work shaqada ka bacdi inuu ninkaas uu shaqeeyo aniga ima shaqeeyo aniga time uu leeyahay inaan time marka inaan duhur ka dhigna ku qasbana marka sometimes casarkii la soo helaa marxuumka waxaan ku qasbana inaan maalinta kala duhurka aan ka dhigno marka si aan taa uga baxno aan u xiroono sida hadda gobolada kale maartay warshada fasid iyo maartay darban iyo ay ayagu meedkooda ay dugtaan culimada waxaan leenahay especially oo gacanta ku hayaan maartay goobaha maartay Soomaalida ay leedahay fadlan nooga sameeya meel aan meedkana ku dhaqano gaadiid anaga haysano meedkana ku soo qaadano annaga la macaamil karo dawladda ka soo qaadan karna marxuumkeena laakiin yaboohad maalin ba aad yaboo haysaan lacagtaas meel ku socota aan la aqoon masaajidan xor u nahay annaga aan leenahay ilaa raakibta malin Minnesota waxa la dhisaa xawaahay masaajid waxa la leeyahay meel kale masaajid laga dhisaa waxa la leeyahay halkana waxa lagu qabanaa xawaahay muxaadara lagu qabanaa muxaadara waxa u baahan goobaha maanta laga xoreynayo khawaarijta fadlan culimo Allah meeshaas taga oo dadka 15 sano xawaahay 15 sano la rogaayo waligood kitaab aan akhrin kitaab been loo akhriyay fadlan waxaan ka codsanaa culimadeena inay goobaha ay tagaan wali waa la ay shiiq furuntu wax ka tagay waa laani xildhibaan waa arku haya qarala siiyo waa arku haya maanta ummada kale laakiin waxaan rabnaa in maartay culimadu inay baraarujiso dadkaas oo 15 sano ka badan oo lagu qufayay diin la'aanta marka insha Allah taala aan warku waa ku dheeraaday intaan maartay ka badan maartay insha Allah taala marka la arki doona waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa walaalahay wiilasha dhalada maartay halkan jooga ayagana oo xaasas kula halkan ayaga naftooda deegaanku ah ilaahay amurin idinta weylo idin duceeyna maadaama odaashiin aan nahay insha Allah taala waxaan idin rajaynayaa khayr iyo horumar hore u socdaad leenahay bulshadiina ha ka daalina wax alla wixii culays aragtaana nala soo socodsiiya annaga garkiisa taagan wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatuhu ila liqaa iyo sanad dambe